sidee casrigan kula muuqataa jiritaanka dawladda Israa'iil oo gaaraysa 48 sano kuna socota 50 sano seed u aragtaa jiritaanka dawladda fikir ahaan maxay kula tahay adiga mustaqbalkeedu anigu waxaan leeyahay Israa'iil waxay ku istaagtay dulmi iyo kufsi cid walba ku istaagta dulmi iyo kufsi masiirkeedu waa mid dumaya hataa haday haystaan awood in ay ku sii jiraan awoodu cid ay baaqi weligeed u ahaanaysa ma jirto cid weligeed awood badnaanaysa ma laha carruurta yaryar markay dhashaan waa ilmo yar marka dambana dhalinyaro ayay noqdaan oo xoog leh waxayna ku dambeeyaan odayaal waaweyn oon awood lahayn dawladuhuna waa sidaas oo Israa'iil hadda marxaladee iyadu ku jirtaa markaa inshallah Israa'iil way suulaysaa waxayna suulaysaa rubaca ugu horeeya qarnigaas soo socda gaar ahaan 2027 Israa'iil waxay noqonaysaa mid aan saaxadda dunida maxaad ku dooratay taariikhdan tan xadiday in 2027 Israa'iil ay dhacayso waa in aan rumaysanahay Qur'aanka Kariimka haddii aad u fiiriso ummadaha 40 sanaba way isbedelaan jiilba jiil ayuu bedelaan waana 40 guusha waa la xoogaystay wax kastaana way isbedeleen hub ayaa la helay khibrad ayaa la helay waan rajaynayaa insha Allah in 2027 ay noqoto dhamaadka nidaamka Israa'iil